gudoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa maanta xilalkii uu kala wareejiyay maayarkii hore ee degmada Ceelafeen Cabdiraxiin Yuusuf Axmed iyo maayarka cusub ee dhawaan la soo doortay aqoonyahan Maxamed Aadan Digaale munaasabadan ay xilalka kula kala wareegayeen labadan mas'uul ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha kala duwan ee ciidamada gobolka Sanaag madaxda laamaha dawladda ee heer degmo madax dhaqameed guurti dhalinyaro haween iyo waliba marti sharaf kale ugu horreyn waxa goobtaasi ka hadlay maayarkii hore ee degmada Ceelafeen maayar ku-xigeenka iyo waliba maayarka cusub iyo xubno kamid ah golaha deegaanka degmada Ceelafeen waxayna yiraahdeen inay uqaashay waayelka waxaan ka codsaynaa inay maamulka cusub la shaqeeyaan nabadgelyada wax shaqo kale laga marayna nabadda qura ayaa laga rabaa waa hadii ummaddu nabad hesho wax walba way qabsoomiyeen nabadda laga shaqeeyo uqaal nabadda kala shaqeeya ilmaha yar ku fadhi baradka yahay xitaa dhaqaajismay waa fadhi barad degmo fadhi barad aan ku wareejin qoladeedan cusubna aan hormuudkaana waxaan leeyahay markay nololaha ku jirnay hadal badan baynu ku soo ololeynay maanta hadal leena go'o baahna wax qabad baa leena uga baahan yahay bulshada heer Ceelafeen waxaan leeyahay hadii aydan nala shaqeyn oo aynaan iskaashan oo aynaan isxilqaamin oo horumarka degmada iyo nabadgelyada degmada aydan nagala shaqeynin waxba ma qaban karayno maamulka heer gobol laamaha degmada wax weeyaan taliyaasha ciidamada iyagana waxaan ka codsanayaa inay nagula shaqeeyaan nabadgelyada koow nagala shaqeeyaan oo aan meel uga soo wada jeesano oo aan u midaysnaano wax kasta oo nabadgelyada ka hor imanaya gacan bira ayaan ku wada qaban doonaa insha Allah bismillaahi kariim runtii ana isku wareejiyay hadeer waxaan ahay golihii hore waxaan ahay maayar ku-xigeenkii hore hadeerna waxaan ahay maayar ku-xigeenka cusub ee golahan cusub ay u doorteen waxaanu codsanaynaa inaad si wanaagsan oo qiimo badan noo shaqeysaan annana waxaanu ka baahan yahay inaanu la nimaadno fakarkii iyo sharciyadan ku shaqeyn lahayn dadweynaha reer Ceelafeen mid baan leeyahay saan noola shaqeystaan baan la shaqeynaa dadweynaha reer Ceelafeen waxaan leenahay haddayna wada shaqeyn oo nabadgelyada ka shaqeyn oo bulshada u shaqeyn waxba isoo kala xilmi maayo sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay cuqaal waxgarad ugaasiyo oo dhamaantood cod dheer ku sheegay inay la shaqeynayaan maamulka cusub waxaan rajaynayaa nimanka maamulka cusub ee iminka ay hadii ay buxuunkeedii ay ka miro dhaliyaan ay wax wanaagsan ka qabtaan ay hadii ay buxuunkii dadka iyo dalka u shaqeeyaan haddaan cuqaashanahay iyo shacabkaba waxaan kula shaqeynaynaa si milkiya maamuus leh haday nabadgelyo tahay iyo haday horumarin tahayba waxaan leeyahay waan dardaaran u jeedinayaa ragga xilku maanta ku soo wareegay waanu idin la shaqeynaynaa aanu la shaqeynayno haddaanu mujtamaca kala duwan reer Ceelafeen aanu aad aanu la shaqeyn doono barwaaqadii Ceelafeen shalay baanu meel u baxnay barwaaqada iyo nabadgelyada iyo dadka iyo sharafta iyadoo gobolba doonay uu yaan la oran maalin walba dadkii walaalaha ay wada dhashay oo sokeeya ahaa ba maalin walba xoogaa ku jira yaan la oran gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay oo xilalkii uu kala wareejiyay maayarkii hore iyo maayarka cusub gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo sidoo kale taliyaasha qaybaha booliska iyo militariga gobolka Sanaag maayarka cusub ee daada yar aqoonyahanka wax badan oo mustaqbalka bulshada u wanaagsanaan doona laga filayo waxaanu maayar soo dhawo xilkan Allah ku fududeeyo horta farxad weyn bay tahay aniga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta si nabadgelyo ah inagoo rabna inaynu xilka u wareejino waxaad qabanaysaan waxa qabashadiina koowaad nabadgelyada ha ahaato oo tan labaad nabadgelyada ha ahaato oo tan saddexaad nabadgelyada ha ahaato degmadan waxay hore ugu mari lahayd waxay ku dhamaatay kala celin iyo nabadeyn ayay ku dhamaadeen wax qabadkii hore loogu sii socon lahaa arinta kolba meel bay taagan tahay maanta waxay taagan tahay waxa weeye halkii horumar ay uga sii gudbi lahayd maanta ayay taagan tahay maanta waxaad tihiin xubno golo deegaan oo Ceelafeen horena maalinta hore waan isku sheegnay ujeedooyin fara badan ha lagu soo kala baxo marka hore nin walba xisbigii uu ka soo baxay ha ka soo baxo hana soo akhriyo wax fara badan Axmed Mursal Askari Star TV Ceelafeen